Assalaamu calaykum. Walaalayaal waa idin salaamay. Waa walaalkii Saki Cabdi Yaasiin. Maanta waxaan doonayaa halkan inaan kugu soo gudbiyo mowduuc aad iyo aad xasaasi u ah. Mowduucaas oo ku saabsan hadaf. Inuu qofku hadaf ka yeesho nolosha uu ku nool yahay. Hadaf inaad nolosha ka yeelataa waa tallaabada koowaad ee aasaaska u ah inaad himiladaada ama yoolkaada xaqiijiso. Suuragalna ma ahan inaad hiigsiga ka gaadho hadaf la'aan. Dadka guulaha waaweyn xaqiijiyeyna dhammaantood waxay ahaayeen qaar leh hadaf cad, qaar garanaya meesha ay u socdaan, sida ay ugu soconayaan iyo waqtiga ay soconayaan. Waxaa muhiim ah in hadafkaagu uu cad yahay sida qorraxda oo kale. Haddaba, halkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa dad hadafkoodu caddaa, xaqiijiyeyna dhammaan hadafyadii ay ka lahaayeen nolosha, kana gaaray guulo waaweyn. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Janaalka Sahan Wade waa janaalka dadweynaha Soomaaliyeed. Fadlan walaal haddaad horey subscribe u saarin, hadda saar naguna soo biir si aad uga mid noqoto asxaabta janaalka Sahan Wade. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Haddaba haddii aan soo qaadanin ninka la yiraahdo Tom Anderson. Tom, macallimiintiisu way ka soo cayriyeen madrasada, waxayna hooyadiis ku dhaheen wiilkaagu waxba ma baran karo, maskaxda ayuuna ka jiran yahay. Hadalkaas Tom iyo hooyadiis midna ma niyad jebin. Tom hooyadiis ayaa macallimad u noqotay, bartayna qoraalka iyo wax akhriska. Tom hadafkiisu wuxuu ahaa inuu sameeyo laambad dunida iftiiso maalin maalmaha ka mid ah. Uuna sameeyey, uuna ka dhaweeyey hadafkiisii. Sidoo kale, haddii aan soo qaadano mulkiilaha shirkadda Microsoft ee Bill Gates, isagoo ah wiil yar oo dhigta fasalka labaad ee jaamacadda, da'diisuna tahay 20 jir, ayaa waxa uu ku dhawaaqay oo yidhi, marka aan 30 jir noqdo waxaan noqonayaa multimillionaire ama qof laab ah qani. Sidoo kale waxaa jiro Maradona oo aad wada garanaysaan inuu yahay mid ka mid ah xiddigaha ciyaaraha kubadda cagta kuwa ugu caansan. Wuxuuna hadafkaas dejistay isagoo 9 sano jira. Telefishinka qaranka ee dalka Argentina ayaa wareysi la yeeshay oo weydiiyey waxa uu doonayo inuu noqdo marka uu weynaado. Wuxuu ku jawaabay Maradona, waxaan doonayaa inaan ku biiro xulka qaranka ee Argentina. Sidoo kale waxaan doonayaa inaan qayb ka galo ciyaaraha dunida. Sidoo kale Maradona wuxuu yidhi waxaan doonayaa inay kooxdaydu ay soo qaado koobka kubadda cagta ee dunida. Sidoo kale Maradona wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan noqdo ciyaartooyga ugu fiican kooxdayda. 10 sano kadib, Maradona wuu xaqiijiyey dhammaan wixii uu sheegay ee hadafkiisu ahaa oo dhan. Wuxuu ka mid noqday xulka qaranka ee Argentina. Wuxuu ka qayb galay isaga iyo kooxdiisa ciyaarta koobka adduunka. Kooxdiisa ayaa ku guuleysatay koobka dunida. Isaguna wuxuu noqday ciyaartooyga ugu fiican ee kooxda. Bill Clinton, isaguna oo ah wiil yar oo ka soo jeeda qoys faqiir ah oo weliba agoon, ayaa macallinkiisii u dhigayay iskoolka. Wuxuu ardayda weydiiyey waxay doonayaan inay noqdaan mustaqbalka. Bill wuxuu ku jawaabay, anigu waxaan doonayaa inaan noqdo madaxweynaha dalka ugu weyn dunida. Arrintaas yaab iyo amakaag ayay ku keentay macallinkii iyo dhammaan ardaydii, waxayna u arkeen inuu Clinton riyoonayo. Clintonna waan ognahay inuu noqday madaxweynaha Mareykanka, laakiin maynaan ogeyn inuu madaxweynenimadiisa ka soo bilaabay isaga oo fasalka 4 ee iskuulka hoose dhigta. Haddii aan intaas uga soo gudubno dadyowgii xaqiijiyey hadafkoodii ay ka lahaayeen nolosha, hadafkeenna inaan xadidno wuxuu inaga caawinayaa inaan garanno dariiqa aan marayno. Sidoo kale wuxuu inaga fogeynayaa inaan dadaalkeenna iyo waqtigeenna ku lumino waxaan faa'iido lahayn. Sidoo kale wuxuu inaga ilaalinayaa inaan ku dhacno jahwareer. Dadaalka badan ee aan lahayn dariiq cad iyo hadaf cad wuxuu keenaa oo keliya daal iyo fashil. Waxaana arrintaa cadaynayo hadalkan muhiimka. Inaan kaliya shaqayno macno weyn ma sameynayso. Waxaase muhiim ah inaan ogaano muxuu yahay waxaan u shaqaynayno. Waxaa jirta cilmi baadhis ay samaysay jaamacadda Bill ee dalka Mareykanka sanadkii 1953.
ardaydii qalin jabinaysay ayaa mid mid loo weydiiyey inay leeyihiin hadaf cad oo qoran iyo in kale. Cilmi baadhistaas waxaa ka soo baxay in ardayda 3% keliya ay leeyihiin hadaf cad oo qoran, halka 97 kale boqolkiiba aysan lahayn wax hadaf ah oo qoran. 20 sano kadib oo ku beegan sanadkii 1973 ayaa dib loogu noqday ardaydii bal xaalkoodu halka uu ku dambeeyey, waxaana la ogaaday in 3% ee lahaa hadafka cad ay haystaan xoolo ka badan isu geynta waxay haystaan 97 kale ee aan hadafka lahayn. Ahmiyadda ay leedahay inaad hadafkaaga xadidaa kuma koobna oo keliya qofka, balse waxay xitaa muhiim u tahay dowladda. Dowladdu inay hadafkeeda xadidaa waa arrinta ugu weyn ee ay ku noqon karto dowlad, kuna hogaamin karto bulsho. Mawduucan intaasuu ku eegaya walaalayaal maanta. Waxaan filayaa inaad wax un ka fahantay muhiimadda uu leeyahay hadafka.